magaalada Casmara ee wadanka Eritrea waxaa shirweyne uga furmay golaha ugu sarreeya ururka ONLF waxaana la sheegay ajandaha in ay ku jirto xaaladda gobolka ee ku soo korortay iyo wadamadaas iyo hoggaanka ururka la fahantiisaba haddaba khadka telefoonka ee magaalada Casmara ayaa wariyaha BBC-da Mawlid Xaaji Cabdi waxa uu ku wareystay Cabdulqaadir Xasan Cadaani oo hirmooga loo yaqaan oo ah afhayeenka ururka ONLF oo uga waramay shirka uga furmay Casmara. kulankan waa shirweynihii saddexaad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya hawlihiisa bilowday kalfadhiga ka horeeya shirweynaha golaha dhexe oo kalfadhiga ugu dambeeya golihii dhexe hore iyo weeyaan hadda shirka socda saddex beri kadibna waxaa bilaabmaya shirweynihii kongareeska ee xubnaha iyo shacbiga ay kasoo qaybgalayeen dad badan oo dhowr boqol imanaya waa shirweynihii jabhadda ee istiraatiijiyadda lagu dejin jiray xeerarka lagu ansixin jiray barnaamijka siyaasiga iyo istiraatiijiyadda ururka lagu dhisi jiray hogaamintana lagu dooran jiray. inta badan waxaa jirta in ururka hogaankiisa in muddo aan isbedel lagu samayn marka hadda qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad wax ka bedeshaan? shirweynaha u taallaa shirweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu madaxdii hore soo doorto ama madax cusub doorto xeerarkii hore inuu ansixiyo xeerarka wax ka bedelo municipal programka wax ka bedelo barnaamijka siyaasiga istiraatiijiyadda ururka ee marxaladan uu dejiyo marka waxaas oo dhan waa hawlo furan weeye oo hor yaala shirweynaha. waxaa jirtay in wadanka Ethiopia oo adinku aad dagaal hubeysan kaga soo horjeedeen dawladda isbedela ay ka dhaceen oo isbedeladaasina ay xitaa ka mid tahay in wadanka aad ku shiraysaan ee Eritrea hadda iyo wada hadal u socdo ee wadankaasi Ethiopia ma laga yaabaa adinkuna inaad qayb ka noqotaan isbedelada hadda dhacaya? isbedelada ka dhacay Ethiopia waan soo dhaweynaynaa waxaanse weli dhowraynaa ama il dhowraynaa in isbedeladu ay noqdaan kuwa aasaasi ah oo waxyaalaha waaweyn Ethiopia isku khilaafsan tahay Soomaali ahaan aan Ethiopia ku khilaafsannahay isbedeladaas inay taabataan baanu weli ka dhowraynaa waxaan nahay inaan wada hadal la galno dawladda Ethiopia waa kula jiray iyadoo proceska caalamiga ah ama diblomaasiga ee loo maro wada hadallada loo marayo ilaa iyo intii isbedelka xagga hogaaminta oo ka dhacay dalka Ethiopia oo ra'iisul wasaaraha cusub Abiy Ahmed la doortay ma jira wax adinka xiriir ah oo toos ah idin dhex maray ama dalab idin kaga yimid ra'iisul wasaaraha? fariimo saxaafadda la soo mariyay ama meediyaha la mariyay iyo fariimo dadban way jiraan oo si toos ah noolamayna soo xiriirin laakiin fariimo positive wata ama fariimo togan way soo mariyeen anaguna jawaab baan ka bixinay arrimaha waan soo dhaweynaynaa si guud laakiin weli xiriir wada hadal oo toos ah ma bilaabmin jawaabtii xagga naga jirtana waan bixinay arrimaha wada hadallada aan soo dhaweynayno isbedeladana soo dhaweynayno tallaabooyin arrimaha sahlayaan inay qaado dawladda Ethiopia dhankeeda jirta kubadda maanta. marka la fiirsho gobolka Kenya oo kale waxaad moodaa in xagga siyaasadda laga gaaray heshiis South Sudan baa ugu dambeysay oo maanta heshiis baa laga gaaray Eritrea iyo Ethiopia iyaguna waxay qaateen nabad ay qaataan haddii aad tiri Ethiopia xaggeeda arrintii jirta maxay tahay marka adinku waxa aad doonaysaan iyo shuruudda aad ku xiraysaan in wada hadal ay dhacaan? halka horta Eritrea iyo Ethiopia waan soo dhaweynaynaa khilaafaadka Ethiopia iyo shucuubta ku dhex nool dhex yaalana wada hadal iyo hab nabadeed iyo hab diblomaasi ah wax liyo yaanu qabnaa mabda'iyana aan aaminsanahay qadiyadda Soomaalida ee Ethiopia oo haysan qadiyo dunaysi ka bilaabatay tahay dhiig badan u daatay diyaar u nahay wada hadal lagu xaliyo dawladii hore Ethiopia muddo badan baanu isku horfariisanay araa kala duwan iyo dawlad badan baa dhex maray marka anagu waa wada hadal furan oo diyaar u nahay inaanu la galno dawladda Ethiopia shuruudaha ku xirayna waxaa weeye si dhab ah loo waajaho qabashada dadka Soomaalida ay tisanayaan in la guuleysanayo dawladda Ethiopia arrinta waa hadal inaan xalino oo nabad ay dadka naga xuquuqdooda ku helaan dhibaatada dagaalka iyo shaqada waagana nabad lagu xaliyo yaan diyaar u nahay. haddii laydinkugu baaqo inaad qayb ka noqotaan dawladda oo awood qaybsi laydiin soo bandhigo ma ku qanacaysaan oo arrintaasi ma tahay arrin aad aqbalaysaan? in wada dhibaatada Soomaalida in la xaliyo ka horeysa qadiyada dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia ku nool in hab nabadgelyo lagu xaliyo oo si siyaasi ah looga hadlo oo si taariikhi ah looga hadlo oo si xuquuq insaan looga hadlo oo dhibaatadaasi rasmi ah loo waajaho ayaa ku xiran marka hore marka taana diyaar baan u nahay in wax la wada qabsado ama muxuu ahaay aan ka goonay Ethiopia inaan la noolaano in awood qaybsi yimaado in arrimo kale yimaadaan in magaalo yimaado waa arrimo detail waxay u baahan tahay arrintan inay nabadgelyo ku waajahdo arrin Ethiopia qodobka ummadda Soomaaliyeed ee ku hoos nool Ethiopia ay tirsanayso ee Ogaadeniya ku nool marka taana inaan ka hadalno oo si nabadgelyo miis isu horfariisano diyaar baan u nahay. Cabdulqaadir Xasan Cadaani hirmooge afhayeenka ururka ONLF oo khadka telefoonka magaalada Casmara ugu waramayay Mawlid Xaaji Cabdi